Waxaa gurmad inooga baahan qoysas badan oo baahida iyo duruufaha daranyada ku gadaaman sheegan karin xishooda awgii sida hooyadan oo kale. Hooyo Ubax Barre waa hooyo dhashay 9 carruur ah oo aad u yaryar, da' ahaan waxay degan yihiin Buula Madaso oo meel jago dad leeyihiin uga dhisan xaafadda 7 soonkiisa 5 agagaarka Maskiidka Ixsaan ama Bukhaari. Hooyadan iyo aabbaha carruurtan dhalay midna wax camal ah ma hayo. Waxay muddo xishood awgii qabsanayeen baahi iyo gaajo daran oo xitaa la sheegay in carruurta markay adkaysan waayeen oohintooda dadka dariska la ah ay muddo kadib ogaadeen. Baahida iyo wax la'aanta haysatana cid aysan u sheegin xishood awgii, taasoo qayladhaan amin salaad subax ah oo aan ku tukanaya masaajidka Ixsaan ama Bukhaari. Imaamka masaajidkaasi walaalaha muslimiinta u soo bandhigay kadib waxa uu subaxaasi iyo dhowr bari gasiin ama cunto u noqon kara halkaasi looga soo ururiyay, loona sii qaaday waagu markuu baryay. Waxaan ka mid ahaa dadkaasi booqday qoyskaasi. Anna dhankayga waxaan jeclaystay inaan meel dheer cabashada iyo codsigooda qayladhaaneed kaalmo dadka muslimiinta ah ee daafaha dunidiisa ku dhaqan ambal inta karaankayaan gaarsiiyo, gaar ahaan Soomaalida Allah wax siiyey inay bisha barakaysan usoo afuriyaan carruurtaasi sabiga ah iyo kafaalaqaadkooda waxbarasho. Ajar iyo xasanaad maalin looga baahan badan yahay aysan jirin ayay ka heli karaan. Haddaba qaar ka mid ah culimada iyo guddiga masaajidka Ixsaan ama Bukhaari oo soo booqday hooyadaasi oo markaasi waxba aanan ka warqabin subax hore oo ay soo kalahday inay wax ay ku qureeciso u heli karto iyo in kalena aanan ogeyn carruurtan yaryar iyagoo bilaa casho ku seexday, ayaa iswaraysigoodii sidan u dhacay. Gargaarkii ay u sideen halkaasi ku siiyeen. Guryo badan oo danyar baahi la ildaran hoos joogaan cidna u sheegan karin baahidooda xishood awgii, haddayna daris ka warqaba lahayn. Hooyo Ubax Barre waxay ka warbixinaysaa baahida ay daran ee ay Hooyo Ubax Barre waxay codsi dheer u dirtay iyadoo ka cudur daaratay in laga duubo fiidiyo, balse sheegtay in ay dadka muslimiintii soo caawiyaan bisha barakaysan iyo kafaalaqaadka ciyaalkeeda dhinaca waxbarashada iyo cuntadooda. Walaalaha haddii aad wax ku tari karto fadlan la xidhiidh guddiga masaajidka ee loo xilsaaray gargaarka ku hagaaji Sheekh Cabdiraxmaan oo telefoon nambarkiisu yahay 0915 721 Sheekh Cabdiraxmaan aan idinku celiyo 0915 721 ama Anwar 0943 101 Anwar 0943 101 ama booqo oo kala xiriir si toos ah guddiga masaajidka Ixsaan ama Bukhaari ee xaafadda 7 soonka 5 agagaarka warshada furunka ee Kiimiya.